السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمركا لسو دوادا أدي هذا وما تسنتهين مقالكن waxaan rabaa inaan idin kula wadaago aaska loo sameynayo hogaamiyihii hore ee wadanka Iran Ayatollah Ali Khamenei oo duqeyntii Mareykanka iyo Israa'iil ay si wada jira u sameeyeen 28 February ku geeriyooday ayaa waxay ka bilaabatay magaalada Tehran ee caasimadda wadanka Iran maanta iyo shalay wadamo fara badan ayaa tagay wadanka Iran si ay ugu soo tacsiyadeeyaan madaxdooda iyo waliba dadkooda maadaama hogaamiyahoodii laga dilay waxaan idinla wadaagayaa sidoo kale Ciraaq goorma la geynayaa halkeesa lagu aasayaa Ayatollah Ali Khamenei ammaanka sida loo adkeeyay iyo waliba dadweynaha ka soo qayb galay laakiin arinta la yaab kale waxa ay tahay in shantii maalmood ee la soo dhaafay Mareykanku uu isku dayayay in dhammaanba safaaradihiisa uu caalamka ku leeyahay ay ka dhaadhiciyaan wadamada ay joogaan in aysan ka qaybgelin aaska loo sameynayo Ayatollah Ali Khamenei wadamada ku dhacay cadaadiskii ama dabinkii dowladda Mareykanka ee ka baaqday oo aan tagin maxay yihiin waan idinla wadaagayaa wadamada tagay iyo waliba aayadaha quraanka ee loo shiday wadan kasta markii uu meydka hor istaagayna maxay yihiin sidoo kalena waan idinla wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada magaalada Tehran ee caasimadda wadanka Iran waxaa ka bilowday aaska hogaamiyihii hore ee Iran Ayatollah Ali Khamenei kaasi oo Mareykanka iyo Israa'iil duqeyn ay ku dileen 28 bishii February ee sanadkan maalintii ugu horeysay ee dagaalka Mareykanka Israa'iil iyo Iran u dhaxeeya uu bilowday waxaa tacsidan ay ka bilaabatay masjidka la yiraahdo Imam Khomeini oo ku yaala magaalada Tehran maanta iyo bari oo axada halkaasi ayuu meydkiisa oolaya dadka shacabkana halkaasi ayay isugu soo bixi doonaan 20 milyan dadka badan ayaa isku soo baxay ammaankana si aad ah ayaa loo adkeeyay maalinta bari ah oo axada 5 galabnimo ayaa meydkiisa waxaa laga qaadi doonaa ayna hal masjidkaasi la yiraahdo Musalla Imam Khomeini oo ku yaala magaalada Tehran waxaana sidoo kale weheliya xaaskiisii gabar uu sodog u yahay wiil uu sodog u yahay iyo gabar uu awoow u yahay oo aad u da'yareed waliba oo dhowr sano lagu qiyaasay in markii duqeyntaasi dadkii lagu dilayna kamid ahayd marka waxaa maalinta bari galinka dambe marka meydkiisa la qaado la geyn doonaa magaalada diimeedka la yiraahdo Qum taasi oo dadka Shiicada ah ay u xajiyaan halkaasi oo maalinta talaadada ah laga soo qaadi doono waxaana la geyn doonaa magaalooyinka iyaguna barakeysan oo ku yaala Ciraaq ee Karbala iyo waliba Najaf arintaasina waxaa codsaday ayaa la leeyahay in dalka Ciraaq la geeyo hogaamiyaasha diimaha ee Shiicada ee wadankaasi Ciraaq siyaasiyiinta iyo waliba dadka shacabka markaas kadibna maalinta Khamiista ayaa waxaa lagu aasi doonaa magaalada Mashhad halkaasi oo aaskiisa lagu soo gabagabayn doono marka sidaasi ayay u dhici doontaa maalmaha soo socda aaska hogaamiyihii hore ee wadankaasi Iran Ayatollah Ali Khamenei wiilkiisa Mujtaba Khamenei lama arkin mana ka soo qayb galin ilaa iyo markii duqeynta oo aabihii lagu dilay uu ku dhaawacmay xitaa mas'uuliyiinta Iran ee arki kara waa ay xadidan yihiin waa ma uusan ka soo qayb galin aaskan aabihii iyo waliba qoyskiisa xubno ka tirsan loo sameynayay sababo la xiriira ammaanka maadaama Mareykanka iyo waliba Israa'iil ay yiraahdeen ay u hanjabeen in ay dilayaan madaxweyne Trump waxa uu yiri toddobaad ayaan siinay Iran si ay u aastaan hogaamiyahooda marka aaska sidaasi ayuu ku dhici doonaa waxaana xal ku dhig looga dhigay we must rise waa inaan madaxeena kor u qaadnaa oo aan kor u soo kacnaa ayaa tacsidan xal ku dhig looga dhigay marka shalay iyo maanta ayaa wadamo kala duwan oo caalamka ah wafuud kala duwan waxa ay u dirayeen wadankaasi Iran si ay tacsidaasi ay uga qayb qaataan waxa la leeyahay ilaa iyo 100 wadan ka badan ayaa tagtay marka wadamada ugu waaweyn oo madaxda u dirtay waxa kamid ah wadanka Pakistan oo Mareykanka iyo Iran dhexdhexaadinaya sidaan ognahay heshiiskii isfahamka ee bishii hore 17 la saxiixayna mas'uulka ahaa ra'iisul wasaarahooda Shahbaz Sharif ayaa uga qayb galay ruushka waxa uga qayb galay madaxa golaha amniga ninka la yiraahdo Dmitry Medvedev isla markaana mar madaxweyne soo noqday haddana ra'iisul wasaare Turkiga madaxweyne ku xigeenka ayaa uga qayb galay Afghanistan wasiirka arrimaha dibadda ayay direen Ciraaqna sidoo kale waxa ay direen madaxweynahooda
Nizar Amidi ninka la yiraahdo. Wadamo fara badan marka ayaa wafuud kala duwan dirtay. Wadamadaasi waxay kala yihiin Sacuudi Carabiya, Qatar, Cumaan, Shiinaha, India, Cuba, Serbia, Xisbullah iyo sidoo kalena Xuutiyiintana wafuud kala duwan ayay direen. Marka wafdi kasta marka uu meydka hor istaago waxaa loo shidayay aayad quraan ah oo ka turjumaysa sida wadankaasi uu Iiraan ula dhaqmay. Markii ay dagaalka ku jireen cadowga ayuu gacan siinayay mise Iiraan ayuu gacan siinayay. Marka sidaas darteed aayado kala duwan oo quraan ah oo macno kala duwan leh ayaa loo shidayay wafdi kasta marka ay meydka ay hor istaagaan. Laakiin arrinta la yaab kale waxay tahay in Mareykanka uu geed dheer iyo geed gaaban uu u fulay in wadamada caalamka uu ka dhaadhiciyo in aysan Iiraan tagin isla markaana tacsida Ayatollah Cali Khamenei aysan ka qaybgelin. waxaa la leeyahay dowladda Mareykanku 5 maalmood ee lasoo dhaafay laga bilaabo 26 bishii hore ee June waxa ay ka dhaadhicinaysay wadamada caalamka in aysan madax u dirin ama wafuud u dirin oo aysan tacsidaasi ka qaybgelin. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa 26 bishii June waxa ay waraaqa sir ah oo amar ah ay u dirtay dhammaanba safaaradaha ay ku leedahay caalamka. safiir kastana waxaa la yiri waa inaad ka dhaadhicisaa wadanka aad joogto in uusan wax waftiya u dirin wadanka Iiraan si ay uga qayb galaan munaasabadaasi baroordiiqda iyo waliba aaska loo sameynayo Ayatollah Cali Khamenei. waxaana ay sheegeen in wadan kasta oo ka qayb gala Mareykanku uu arki doono wadan aan saaxiib la ahayn isla markaana sidoo kalena cawaaqib kale oo dhinaca xiriirka Mareykanka kala dhaxeeya wadamadaasi uu ka dhalan karo haddii wafuud ay u diraan dalkaasi Iiraan. ilaa ay hadda wadamada bariga dhexe ee aan wafuudda dirin waxaa kamid ah Kuwait, waxaa kamid ah Bahrain, waxaa kamid ah Imaaraadka, waxaa kamid ah sidoo kale Masar ma aysan dirin. marka waxaa muuqanaysa marka in Mareykanku uu isku dayay in wadamada caalamka muddo 5 maalmood ah uu ka dhaadhiciyo in aysan wax wafuuda u dirin dalkaasi Iiraan. wasiirka arrimaha dibadda ayaana waraaqdaasi waxa uu u diray dhammaanba safaaradaha Mareykanku uu ku leeyahay caalamka. safiir kastana waxa la yiri wax kasta oo awooddaada isticmaal si wadanka aad joogto aad uga dhaadhiciso inuusan wax waftiya u dirin wadanka Iiraan. Marco Rubio waxa la leeyahay waxa uu si gaar ah ula xiriiray 5 wadan oo Carbeed waxa uuna u sheegay in aysan wax waftiya u dirin wadankaasi Iiraan. marka waxay noqon kartaa Masar oo kale, Imaaraadka, Bahrain iyo sidoo kale Kuwait waxay kamid yihiin wadamada hadda aan dirin. marka 5taasi wadan waxaa kamid noqon kara wadamadaasi aan hadda idin sheegay. sidoo kalena safiirada wadamada Afrikaanka jooga iyagu waaba sii tallaabsadeenba. safiirada Mareykanka uu jooga wadamada qaaradda Afrika waxa iyaguna ay ugu hanjabeen in gargaarada horumarinta ee Mareykanku uu siiyo wadamadaasi laga jaran doono haddii wax wafdi ah ay u diraan wadanka Iiraan. laakiin Iiraan waxay tiri inkastoo Mareykanku uu isku dayay hanjabaadahaasi isla markaana wadamada safaaradaha uu ku leeyahay caalamka inuu ka dhaadhiciyo in aysan wafuud soo dirin, labadii maalmood oo la soo dhaafay 100 wadan ka badan ayaa timid. laakiin waxaa jirta 13 wadan oo cadaadiska Mareykanku uu seeray uu hoggaansamay isla markaana dib ula laabtay ka qaybgalkoodii in Iiraan ay tagaan tacsidaasina ay ka qayb galaan. waxa dowladda Iiraan ay ku sheegtay in 3 ka mid ah wadamadaasi ay ka soo jeedaan wadamada bariga Yurub. 3 wadan oo ka mid ah wadamada bariga Yurub. waxaa sidoo kale ku jirta 5 wadan oo Afrikaan ah laakiin wadamada magacyadooda lama sheegin. waxaa ku jirta sidoo kale 2 wadan oo Carab ah gaar ahaan kuwa Persian Gulfka ku yaala marka Bahrain oo kale iyo Kuwait oo kale ayay noqon karaan. waxaa sidoo kale jirta in ay jiraan ilaa iyo 2 wadan oo iyaguna ku yaala bariga Asia in ay kamid yihiin wadamada cadaadiskii Mareykanka u hoggaansamay oo aan wax wafuuda u dirin wadankaasi Iiraan. laakiin dowladda Iiraan waxay tiri wadamadaasi marka ay dib ula laabteen invitationkii loo diray inay ka soo qayb galaan aaska Ayatollah Cali Khamenei raaligelin iyo marmarsiyo ayay waxa ay noo soo marsiiyeen wadamo kale amaba diblomaasiyiinta u fadhisa Geneva iyo New York ayay raaligelin noo soo mariyeen oo waxay yiraahdeen wadamahoo naga raali noqda cadaadis xoogan ayaa Mareykanku uu na soo saaray sidaas darteed kama soo qayb gali karno. marka sida muuqata Iiraan horta waa ay ku guuleysatay arrintan oo wadamo fara badan oo India iyo waliba Shiinaha
ruushka ay ka mid yihiin oo wadamo quwad nuclear sida Pakistan oo kale ayaa tegay oo ka qayb galay. Wadamo fara badanna wafuud kala duwan ayay u direen. Laakiin sida muuqata Mareykanku waxa uu isku dayay in wadamadaasi oo idil uu ka hor istaago in ay wax wafuud ah u diraan. Maxaa yeelay ninka ay direen waa hogaamiye diimeed sare, isla markaana waxa muuqanaysa in wadamadan aysan raalli ka ahayn dilka Mareykanka iyo Israa'iil ay geysteen. Sidaas ayay u muuqataa. Mareykankuna waraaqahan markuu safaaradihiisa u diray wuxuu yiri wadan kasta oo ka qayb gala waxaan u arkaynaa wadan aan saaxiib la ahayn Mareykanka, isla markaana waxa ka dhalan kara haddii uu ka qayb galo cawaaqib dhinaca xiriirka wadankaasi nagala dhexeeya. Wadamada qaar oo Afrikaankana waxaba loogu hanjabay in kaalmada la siiyo lacageed deeqo oo horumarin ahaato ama raashin ahaatee in laga jaranayo ayaa loogu hanjabay. Marka arrimahaasi ayaan rabay inaan idila socodsiiyo asxaabay. Aad iyo aad u mahadsantiin.